السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتي قيمة بدن ku xiran janaalkeena dhiirigelin naftaada ku soo dhawaada muuqaal cusub. maanta waxaynu ka hadlaynaa waa maxay jacayl. jacaylku waa noocyo shucuur iyo dabeecado lagu garto isku soo dhawaansho qiiro iyo farxad. waxay ku lug leedahay daryeel, isku soo dhawaansho, ilaalin, soo jiidasho, kalgacal iyo kalsooni. jacaylku kala duwanaan karaa xooggiisa waana isbedeli karaa. waxaa la xiriirta dareenno kala duwan oo quman oo ay ku jiraan farxad, reyn ku qanacsanaanta nolosha iyo wadajir. laakiin waxaa sidoo kale ka dhalan kara shucuur xun sida masayr iyo walbahaar. jacaylku dadka qaar waxay dhihi lahaayeen waa mid ka mid ah shucuurta aadanaha ugu muhiimsan, hase yeeshee inkastoo ay tahay mid ka mid ah dabeecadaha ugu daraasada badan, haddana waa tan ugu yar ee la fahmay. tusaale ahaan, cilmi-baarayaashu waxay ka doodaan in jacaylku yahay ififaalo noole ama dhaqan. jacaylku waxay u badan tahay inuu saameeyo wadayaasha dhiigga wadnaha iyo saamaynta dhaqameed labadaba. inkastoo hormoonada iyo dareemaha ay muhiim yihiin sida aan u muujino oo aan ula kulanno jacaylka, sidoo kale waxaa saamayn ku leh fikradaheena shakhsiyadeed ee jacaylka. waa maxay calaamadaha jacaylku? baarayaashu waxay kala sooceen dareenka jeclaanta iyo jeclaanshaha qofka kale. sida laga soo xigtay cilmi nafsiga, jacaylku wuxuu ka kooban yahay 3 walxood. midda koowaad waa lifaaq. haddii aan tacbiirino u baahnaanta inaad la joogto qofkaaga oo aadna u hesho xiriir jireed iyo mid ogolaanshaba qofka aad nolosha la wadaagayso. 2 daryeelid. ku qiimeynta qofkaaga farxadiisa oo ay aad ugu baahan tahay ama ugu baahan yahay sida aad adiga ugu baahan tahay oo kale. 3 isku dhawaanshaha. la wadaagida fikradaha gaarka ah, dareenka iyo rabitaanka qofkaaga. muuqaalkan waxaan uga hadlaynay waa maxay jacayl. waxaan filayaa inaad wax badan ka faa'iiday ama wax badan muuqaalkan uu ku ifiyey. fadlan haddaad ka heshay barnaamijka aan wadno iyo barnaamijyada soo socda si aad u hesho, fadlan subscribe saaro janaalka, like garay muuqaalka, la wadaag asxaabtaada si ay fikradahooda ugu soo dhiibtaan. fikirkaadu waa inuu muhiim noogu soo qor qaybta commentiska. insha Allah waana ku soo jawaabi doonaa. ramadaan kariim. insha Allah waxaa inoo balana muuqaalkan muuqaalka xiga. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.